waxaa kaloo loo aanayn karin hayb gaara waxaa lagu garanayaa dhacdada dacawaley ciidanka wax ka soo gaadheen ee ku dhintay dhammaan gobol 11 gobol ee deegaanka meel kasta ka soo jeeda tirahan marka hadhow soo baxdana waa la yaabi doonaa ciidan isku dhafan oo city ka soo jeeda oo daawa ka soo jeeda oo shabeelle ka soo jeeda oo liibaan ka soo jeeda saraakiisha laga garanaya waxa soo gaadhay marka runtii taa waxaan u bayaaminayaa maadaama oo aragti khaldan la faafinayay oo in ma garanaysaa hayb gaara ay adeegsanayso laga dhigay inay taasi jirin in la ogaado ayaa loo baahan yahay arrinta dacawaley degmada Xarshin ka dhacday oo ogaayay in qalbiga aad ku haysaan waxaan ka dirayaa baaq nabadeed shacabka wax gaareen halka degan haday barakac noqoto iyo haddii ma garanaysaa isku dhici jiray muxuu ahaa wixii ka yimid ee booliska gaaray iyo dadkii la dagaalamayba ah dhammaan waa dadkeenii inta badan weli waan tuunsanahay dad ka soo talaabay xadka oo jeedooyin kala duwan jiraan inay ku dhex jiraan haddana mar haddii dhexdana lagu dagaalamay dadku waa dadkanagii waa dadkan mas-uulka u ahayn waajib baa naga saaray inaan qancino inaan dhegaysano in waxa ay ka cabanayaan aan maaragtay la fadhiisano waajib baa naga saaran awood iyo karti ku filanna waan leenahay xukuumad ahaan arrintaas waan ku filannahay haddaan ku filan weynana institutionadii kale ee naga caawin lahaa waan haysanaa culimaadudiinkii baan leenahay odayaashii dhaqankaan leenahay aqooyaankii baan leenahay inta haddaan ku filan weyno waxba kuma filin inaan xallinno muxuu ahaa arrinta noocaasay timid shacabka iyo booliska meesha ku nool shacab wada nool bay ahaayeen kooxa fidno wadayaala dhibaato ay geysteen ayaa maanta arrintaas ku dhacday waxaan xaggan ka xaqiijinayaa ciidanka liyu booliskii hore looga cabanayay haday hayb ahaayeen haddeen ahayn cidda ay dhibaatada u geysteen haybta loo aanaynayan bay u badnayd 90% wixii ay dileen iyo waxay dhibaateeyeen haybtaa la sheegayan bay ahayd wixii dadkale soo gaadhay duul buu ahaa sidaasay tahay maalinkii dhaweeytay ay dhibaatadu dhacday ee u horreysay ee runtii waxa lala yaabo ay ka bilaabatay oo wax laga heshiiyey oo dad badan baa u dhigaya dhul laskuma haysto dhul waa laga heshiiyey waa la dhameeyey maamulada heer degma isaga yimid heer gobol baa isaga yimid odayaashii baa loo yeedhay waa la kala qaatay go'aankii waa arrintii ugu horreysay ee madaxweyne ahaan anigu saddexdii subaxnimo ilaa 3dii dambe casarkii aan u fadhiyo wey hawlaha noocaasa ma galo kulli xabiiska nabadgelyada iyo gobollada yaa dhammaysta gobolka faafan waxaa ka ahaan jiray gudoomiye cabdixakiim halka inala joogo ka warhaya sida loo xaliyey si runtii aad iyo aad cadaalad u ah oon u arkaynay in tanaasulaad dheeraad la sameeyay ahayd haddana waxaa aragtay baa ka dhashay waxay ku timid gogashii nabadeed iyo wanaaggii meesha yaallay oo la laaday oo ducifnimo iyo jilec loo arkay iyo ku timid arrintaasi waxaan rajaynayaa gogasha nabadeed maanta aan dhigaynana inaan macnaha noocaasa aan loo yeelan ciidamadaas halkaa joogay ee nabadda ilaalinayay tacaddi xun baa lagu sameeyey waa la laayey kooxo abaabulanoo hubaysan baa laayey aad iyo aad baan ugu tacsiyeynayaa ciidamada aad iyo aad baan ugu tacsiyeynayaa dhibaatadaa soo gaadhay ilaahay ha u naxariisto insha allah haddii aan duco barnaamij ducana waa loo qaban doonaa maalmaha soo socda ciidamadaas 6 sano ama 7 sano hadda xukuumaddani jirtay lama heli karo aagaas hadda ay ka shaqaynayeen iyo degmooyinka ay ka shaqaynayeen gabar ay qanjiiriyeen haddii laga soo helo magteedaan bixinayna تعدي ما تعدي هاي نوضن بيو قبل قنشيرين هذه لقاها وتضواها صرنود سيدا يدا يتاي هيابله markii dadku isku dhaca sababaha jira awgeed wuxuu doonaa ha noqdo garoonka bad lagu ciyaarayo yaa booliska dadku isku layn karaan in meedkoodii suxun loola dhaqmo muxuu ahaayay dhagaha laga jaro sanka laga jaro xubnaha taranka laga jaro waxaan runtii ay mudnaayeen runtii ma aha maadaama ay dhibaato baa geysaninba si kastaba ha ahaatee waa shacabkoodii waxa meesha jooga mas'uuliyadda way saaran tahay inaan arrinta xalino waxaan ku baaqinaa nabad aagaasna waxaan u diray doonaa ergooyin kala duwan diyaarna waan u nahay inaan baaritaan qoto dheer oo madax bannaan ku samayno
wixii dhacay wixii xalay ka soo baxana xukuumaddu ay u hoggaansato mas'uuliyaddeedana ay qaadato waxaa kaloo la samayn doonaa qiimayn qoto dheer oo maamulada iyo hay'adaha amniga ku salaysan oo iyadana la eegayo wixii dhacay sida u dhaceen arrimahaas insha Allah haddii alle waxaan rajaynayaa ay soo dhaweyn doonto xalka waa haddii eegana aan khalad kale una iman oo gobasha iyo nabadda lagu baaqay aan loo macnaysan si kale wixii dhacay saas u noqonayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Soomaalida weeye dawacale waxay la mid tahay shinile maanta aan joogno kale waa mas'uuliyad xukuumadda deegaanka Soomaalida saaran haddaan anagu xalin kari weyno waa mas'uuliyad dawladda federaalka ee dalka saaran in nala xaliso hadiiba cadaalad aan ka sameey weyno inay soo galaan marka ay saa lagu ixtiraamo oo xalkeeda gudaha inuu ku jiro la ogaado ayaan maaragtay ku baaqayaa dawladda walaalahan nahay ee ka dhisan Somaliland gaar ahaan xukuumadda cusub ee hadda iskaashi amni iskaashi walaalnimo balaaran baa naga dhaxeeya xukuumaddii horena dhib kuma aanan qabin oo iyadana waan wada shaqayn jirnay eegana waxaan ka codsanayaa inaan taas sii xoojino iskaashigaas amni aan ka wada shaqayno sida aan tuunsanahay haddii ay jiraan xoogag nabadiida oo aaga ku jiraan aan ka wada shaqayno oo iskaashano haddii ayna jirin way soo bixi doontaa haddii la yiraahdo waan ka shaqayn doonaa waan ognahay xukuumaddu inay cusub tahay weli aynan la wareegin dhammaan awoodihii amniga ee wax kaga qaban lahayd hawlahaas laakiin waxaan ka codsanaynaa in la ixtiraamo xuduudaha caalamiga oo lagu daayo arrintan xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida in lagu daayo wixii kale ee talooyinana maadaama fagaarayaal la isugu yimaado ay jiraan saxaabadda aan la isu marin ee fagaarayaasha iyo xidhiidhada kale la isugu sheego yaan ka codsan lahayn ugu dambayn waxaan anagu tuunsanahay 1990 xukuumaddii maxamed siyaad barre ee Soomaaliya ka talinaysa waa dhacday maanta haddaad gashaan social media dhammaan gobolladii Soomaaliya qabaayil baa islaynaya waqooyi ilaa koonfur waxay ka dhalatay ururadii mucaaradka ahaa ee hubaysnaa ee la dagaalamay nidaamkii kaligitaliska ahaa isaguba dhibaato badan dadka ku hayay arrintaasi waxay muujinaysaa in waxyaalaha hadda dhacaya laftigoodu ayna ahayn waxyaalaha hadda bilowday wax salka ku haya taariikhda hore ay tahay nacayb badan oo ku salaysan haybta yaa la abuuray waxaa jira ururo ilaa iyo hadda la dagaalamaya qalfoofkii siyaad barre isagoo aan ognahay inuu dhintay muxuu ahaa xilli hore ama talada uu ka tegey ugu yaraan 34 sano ka hor arrinta dacawalay dadka shidaya qaar ka mid waxaan aaminsanahay inay yihiin kuwa aan ka hadlay ee ururada ah ee weli aan ka bogsanin dhibaatooyinkii waaga dhacay waxaan ugu baaqaynaa naca iyo qalfoof la dagaalanka siyaasadda ku salaysani inayna ahayn mid horumar iyo nabad gaarsiinaysa dadka Soomaaliyeed way soo rafaadeen gaajo iyo saxariir baa ina dilay adduunka kama ina dambeynay haddaynu maaragtay ay nabad haysano marka inaan haddana nabadaas xooga la saaro hadallada foosha xun waxyaalaha dadka kala fogeynaya lagu hadlayo dadka waaweyn ee mutakarkiina iska ilaaliyaan social media dad badan waxa ku jira aan bislayn laakiin odayaasha iyo siyaasiyiintu inay ogaadaan wax kasta oo dhacay la isaga yimaado waxa hadda aad lagu hadlayay xasuuq baa ka dhacay meesha waxa kale oo laga hadlayay ciidankii liibi booliska waa xasuuqno waan ka adkaanay labada arrimoodna midun bay noqonaysaa marka haddii booliskii la xasuuqay maxaa loo xasuuqay oo loo laayeen bay noqon hadday iyagu xasuuqeenna ciddii xasuuqeen ee maatida yaynu baariyon wada ogaan doonaa waxaan ku kalsoonahay hal qof oo maatiya oo hubaysane ciidanka la dagaalamay aan ahayn halka inay kaga dhicin waan ognahay waan la soconaa si kastaba ahaatee colaadda laftigeedaba dhibaata hooyada ka barakacda meel ee xitaa dib u baxda ee dhibaatay ku tahay xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin shacabkanagii in aagga shacabka ku nool la gaadho gargaar loo geeyo lala fadhiisto gogol loo fidiyo waan ka shaqaynaynaa waxaan halkan ka cadaynayaa maanta inaan arrintaas in wax nagala qabto maadaama sheegay oo nidhi waxaan la kaashanay